مسؤولين كترسن اسبتالك guud ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo maanta la hadlay qaar kamid ah qalabka warbaahinta ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee isbitaalka iyo sidoo kale bukaanka ku jira Dr. Maxamed Cabdi Buraale madaxa qaybta TBD ee isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ayaa saxaafadda u sheegay in haatan ay xaalad adag ka jirto isbitaalka isagoo hoosta ka xariiqay in bukaanka soo wajahday gogol la'aan isagoo intaas ku daray in sidoo kale ay gaadiid la'aan hayso isbitaalka guud ee magaalada Dr. Maxamed Cabdi Buraale waxa uu sheegay in marka loo eego xaaladda isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood uu waqtigan u baahan yahay gargaar dhinaca gogasha ah iyo sidoo kale gaadiidka waxaana uu dhakhtarku sheegay in isbitaalku uu haysto kaliya hal gaari oo gargaarka degdega ah ee ambalaasta waxaa jirta in dawoowan u helaa WHO dawo keenta bukaanka iyo qalabkii shaybaarka laakiinse waxaan jirin raashin ayaana bukaanka u haynin beri dhaxdaa ahayd Finland baa lagu soo diri jiray feeding program 5 sanadood 2005 ilaa 2010 shantaas sano ay noo socday feeding programka markii dambe uu naga joogsaday imika labadan sanadood dambe wax feeding program oo aanu haynin ma jirto marba wixii aan helo diasporada waxaan uga helo gabdho waxay soo tirtiraan marba wuxuu karkarino laakiinse raashin joogta oo loo hayo bukaanka ma jirto idinkuna waa qiyaasi kareysaan cudurrada kala duwan laakiin cudurka TB-da qofkii 6 bilood ama 8 bilood ustaarkii noo jiifaya waxaa daruuriya in loo helo raashin fiican qofkii miisaankiisa weynaado xanuunkiisa ka xajiyo isbedelo caafimaad marka waa raashin loo helo meel allaaliya meel aan ahayn dhalinyarada diasporada ah oo reer Sool Sanaag iyo Cayn dadkan ay ku abtirsada dhulkan mooyaane cid kale oo maanta loo oran karo iyo halkaas looga heli karayaa raashin waa sheegi karayaa ma jirto haddana ma hayno hay'ad cusub oo feeding program amba Europe amba Norway amba meel looga keenaysa amba Finland ma hayno sida kunta marka arinta waxay isku soo guuya noqonaysaa dhalinyarada u dhalatay gobolkan iyo goboladan dadkan degaan inay qaab u fidiyaan dadka bukaanka oo aad ugu dhibaatoobayo isbitaalada isla meel baa tagaysa dawadaada iyo raashinkaaga iyo daryeelkaaga oo ka helaysid isla markaa aan helaynin raashin waan daryeel kale مثلا كي قبله waxay jecelahay goor biyo macaan loo shubo biyo macaan gobolka aad baqaalo weey waqtiga roobku daan waan u shubnaa sida runta laakiin marka roobku aan jirin oo biyo qaali noqdaan foostadii noqoto 60,000 qiyaastii $3 meelaha foostadii markay noqoto dalmo shubi karay $30 min saddex waa imisa $9 ama $100 bay tagayaan barkadooda halkan ugu jirto biyaha macaan loogu talagalay marka ma awoodi karno idaan u weydiinana ma jirto kuwan mushaariyo noo soo diray waan u weydiinay waxaan mushaarada noo soo dirto wad mahadsantiin biyo macaan baa loo baahay dadka cabaan maalinta ay cabaan ma leeyahay lacagta ma hayno bixin karaan raashin loo baahan isla markaa waxaa loo baahan yahay gogoshii waxaan ugu ballan qaaday sida kunta gabdho jooga Australia ku bahoobay in urur leeyahay khayraad oo Faaduma Axmed Saalax gabadh leeyahay madax u tahay waxaan ugu ballan qaaday inay waarkii dumarka u keeneen sariire iyo furshaan iyo birkimooyin iyo gooyaale inay u keenaan waarka halkan intaan leh waa ka warsugeynaa ilaa bisha dambe bisha labaad bisha saddexaad meelaha ayaa laga yaabaa in lacagta soo ururiyaan noo soo diraan wixii macaawinooyin oo kale oo aan helin xagga rehabilitation ka ustaan gidaarada qaar oo baahan la yara sameeyo la caawiyo ustaalku guud ahaan baahida ugu weyn ka taagan waxa weeye markaan ka tago qaybta TB-da baahida koowaad amba ay soo ururayso baahida oo dhan raashin iyo biyo macaan marka laga tago ustaalka guud ahaan biyo macaan ha ustaalka in baahida ugu weyn oo ka taagan imika waxa weeye raashinka aan soo sheegnay
iyo ultrasoundkii oo naga jabay ultrasound baan haysanay iyo ECG wuu noo shaqeeyaa laakiin ultrasoundkii waa naga jabay iminka bukaankii waxaan u dirnaa magaalada dadka loo baahan yahay dumarka oo kale dadka loo baahan yahay in la saaro ultrasound gidigood magaalada iska soo saara marka ultrasound in loo qodo bariyahan ultrasound-yada raqiis bay noqdeen waxaa la leeyahay ultrasound Chinese oo ilaa 4,000 meelaha jooga hadduu u bato 3,750 mid maqlay ayaan weydiisiyey beriga hore qaali bay ahaan jireen kaayagu wuxuu joogay kan laga jabay wuxuu joogay $25,000 $25,000 waa mid Jarmal asalkiisu Jarmal yahay waa MBA laga beri hore noo soo gatay hadda way raqiiseen sida runta waxay marayeen 4,000 ultrasound fiican oo lagu shaqeyn karay markii in halkaan laga caawiyo waxna isla markaa shaybaarka iyo cusbitaalku waa shaybaar gaboobay waqtigan xaadirka shaybaariga casriga soo baxay mid in leeyahay complete blood count CBC iyo in biochemistry oo dhiig oo dhan lagu sameeyo complete blood biochemistry la sameeyo iyo mid la sameeyo machine yar oo lagu sameeyo ESR dhiigga lagu sameeyo waxa soo dhan hadii u bataan waxa isku tagayaan qiyaastii gidi waxa la leeyahay shaybaar qalabkiisa oo dhan hadii la isku bixiyo 10,000 ma gaarayaan $1 iyagana waxaan jeclaanahay in la caawiyo xagga shaybaar wanaagsan hadii cusbitaalku haysto wax walba la baari karayo raashin fiican oo loo helo bukaanka dawooyinna loo heli karayo inta basic loo heli karayo marka waa suurtagal in basic needskii oo health care system kan laascaanood ku xidhan inaan u awoodno inuu fulfil karayo waa suurtagal bay noo noqon karaysa intaasaan kaga baxayo waad mahadsantihiin waxaa jirta in dawo waan u helaa WHO baa dawo keenta bukaanka iyo qalabkii shaybaarka laakiinse waxaan jirin raashin ayaana bukaanka u haynin beri dhexdaa ahayd Finland baa lagu soo diri jiray feeding program 5 sanadood ay noo socday feeding programka markii dambe uu naga joogsaday iminka 2 sanadood dambe wax feeding program oo aanu haynin ma jirto waxay noqonaysaa dhalinyarada u dhalatay gobolkan iyo goboladan dadkan degaan inay gacan u fidiyaan dadka bukaanka oo aad ugu dhibaatoobayo cusbitaalada isla meel baa tagaysaa dawadaada iyo raashinkaaga iyo daryeelkaaga oo aad ka helaysid isla markaa aan helaynin raashin gaadiidka xaggiisa shaqaaluhu way soo wada lugayaan kuwa meel 2 kilomitir cusbitaalka u jirta degan oo soo lugaya qaar meel kilomitir iyo bar jirtay ka soo lugaya qaar 3 kilomitir bay qaarba meel fog bay ka soo lugayaan sida runta ambulance gaadiid cusbitaal oo shaqaalaha qaada medicine qaar ka mid ah bukaanka cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood oo yana la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay si weyn uga codsanayaan hay'adaha gargaarka iyo sidoo kale dadka qurba joogta ahba in ay ka soo caawiyaan cusbitaalka baahiyaha haatan taagan ee gogasha lagu jiifiyo bukaanka iyo sidoo kale gaadiidka barnaamij jirto ma garatay waxa weeyaan sariiruhu waa wada jabeen way wada dhaceen salka ka wada dhaceen bedel bay u baahan yihiin دكتورك يقبل كويل لا شقة يلا ربع وحيد مقرن الساعة معلومات هاي وبهين الوقفته وحويا المركع دي عادي لو طريقه ذاتك باهيدي سا جوجشي سا سريريه سا قابكي سا أنت برا دكتورك يوه قبل كمعلومات كل شغلة دوين فلفلين هذا لقى كورين ومقرن الساعة لا شقينين يوه بس بدري يعني مقرن بنوت الله واحد استبعها هاته واحد داود أهين وماشى عنو كوقبنا مشفتو وايه sida kale naadir wallahi baahid waa jirtaa maxay raahday biyaha maxay ahay toy weelka maxay ahay toy cuntada nafaqada leh saawi si kastaba ha ahaatee isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa haatan ku sugan xaalad adag kadib markii ay soo food saartay agab la'aan dhanka jiifka ah iyo sidoo kale gaadiidka oo ku yar waxaana mas'uuliyiinta iyo bukaanka ku jira isbitaalkaasi ay si wada jir ah uga codsanayaan cid kasta oo wax ka qaban karta xaaladda haatan ka taagan isbitaalka in ay gacan u fidiso iyadoona uu isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood yahay
kan adeega ugu badan ee caafimaad bixiya ee haatan ka jira gobolka Sool iyadoona si weyn looga dayriyo xaaladda caafimaad ee gobolka